daawadayaal assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu meel walba oo aadaafaha adduunka joogtaan waa qaanin media oo maalin kale iyo war cusub oo ku saabsan Cimraan Khan oo shalatoole fagaaraha cagaaran goobta loo yaqaan ee ka dhiga wacdara aad u weyn Cimraan Khan iyo taageerayaashiisa oo mar labaad ku soo laabtay shalay oo goobta loo yaqaan goobta cagaaran ama fagaaraha cagaaran ee caanka ku ah kacdoonada shacabka in ay isugu yimaadaan ay ku soo banaan baxeen marka la arko arrinkan waxa ay u eg tahay Cimraan Khan in uu haysto taageero aad u badan laakiin wax natiijo kama dhalan aanan ahayn in la ogaado awoodda Cimraan Khan iyo taageerayaashiisa Cimraan Khanna waxa uu ka dalbaday oo ka codsaday xukuumadda in ay u dhaqaaqaan dhanka doorashooyinka sida ugu dhaqsiyaha badan ee dalka laga ilaaliyo fowdo iyo qalalaaso maantana taageerayaasheenana waxaan faraynaa ayuu yidhi in ay guryahooda ku noqdaan anaga oo ka fogaanayna in dowladda ama xukuumadda iska hor keenta shacabka iyo askartooda laakiin waxaan siinay dowladda fursad isbuuc ah in ay ku aqbasho dalabaadkeena oo ah doorashada in lagu qabto in doorashada la qabto haddii ay kasoo dhalaali weydana dowladda waxaan ku soo noqonaynaa isla goobtan weli anaga oo markaan ku imaan doona 3 milyan oo ruux videoga ila daawade oo Cimraan Khan kula hadlayo taageerayaashiisa करना चाहता हूं इस इम्पोर्टेड हुकूमत को एक पैगाम देना चाहता हूं आपको मैं 6 दिन दे रहा हूं 6 दिन के अंदर आप इलेक्शन अनाउंस करें जून के महीने में इलेक्शन अनाउंस करें और असेंबलीज डिसॉल्व करें अगर 6 दिन के बाद ये नहीं करेंगे आप तो मैं सारी अपनी कौम को लेके वापस इस्लामाबाद आऊंगा आपके पास टाइम है गवर्नमेंट आपसे चल नहीं रही गवर्नमेंट आपसे चल नहीं रही आप गवर्नमेंट चलाने नहीं आए करप्शन के हिसाब अपने खत्म करा रहे इसलिए 6 दिन अगर 6 दिन में आपने फैसला न किया तो मैं सारी अपनी कौम के लेकर इंशाअल्लाह इस्लामाबाद आऊंगा और इस बारी कोई रुकावटें नहीं होंगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि कोई किसी किस्म की पुरअमन एहतजाज पे किसी किस्म की रुकावट नहीं हो सकती तो इंशाअल्लाह पंजाब से भी सारे लोग पहुंचेंगे और इंशाअल्लाह जो मैं चाहता हूं कि 20 लाख लोग इस्लामाबाद में हम इकट्ठा करेंगे अगर आपने इलेक्शन अनाउंस किए पाकिस्तान arrinkan sida sidee aad u aragtaa ma arrin wax ku ool noqon karaa oo ay dowladda isku caleemo saartay wadada toosan ugu soo dhici kartaa ama mid feejignaan kasii qaadanaysa xisbiga Cimraan Khan iyo madaxdooda sarsare ku beegsan doonta ama Cimraan Khan laftirkiisa ku soo xiri doonta raygaaga waa inoo muhiim daawade sidoo kalena like iyo share ha ka ilaawin qaalin media nabigana ku saliya sallallahu alayhi wasallam waa inoo kulanti dambe